magaca rasmiga ah waa Jamhuuriyadda Isutaga Mexico. dhulka Mexico waxa uu dhacaa qaybta koonfureed ee Ameerikada Waqooyi. Mexico waxa lagu tiriyaa in ay tahay dawladda lixaad ee ugu weyn qaaradda Latin America marka laga hadlayo xagga bedka dhulka, iyo dawladda 13aad marka laga hadlayo caalamka. badanaa Mexico waxa ay caan ku tahay oo wararka warbaahintana ay si maalinle ah ku haysataa hawlaha sharci darrada ah sida wax isdabamarinta iyo isticmaalka iyo kala gudbinta daroogada. Now, the authorities in Mexico have arrested the man who was serving as Attorney General when one of the country's worst human rights atrocities took place. Ma naqaanaa wax kasta oo ku saabsan Mexico. Si dhab ah marka aanu u hadalno, jawaabtu waxa ay noqonaysaa maya. waxaa jira wax badan oo naga qarsoon oo ku saabsan dalka Mexico iyo dadkiisaba. sidaas daraaddeed warbixintan ayaanu ku soo ururinay xogo xiiso badan oo ku saabsan Mexico, kuwaasi oo aan badanaa si waafi ah loo soo bandhigin. Mexico dhaqaale ahaan waa dal sabool daran ah. dhaqaalahoodu waxa uu dhulka dhacay sanadku markii uu ahaa 1994 ilaa iyo hadda waxa ay ku jiraan isku day ah sidii ay kor u kac dhaqaale u samayn lahaayeen. wax walbana wali waxa ay ku socdaan si gaabis ah. saboolnimada ka jirta Mexico waxa fursad u arka wadamada qaar ee caalamka. sidaas daraaddeed ayay u muuqataa in ay tahay dawlad ay wadamo kale tafaha ku dhigan yihiin. mid ka mid ah mushkiladaha kale ee ugu waaweyn waa dhibaatada ka haysata qulqulka tahriibayaasha doonaya in ay u tallaabaan xadka waddanka Mareykanka. laakiin dawladda Mareykanku wax badan ayay u suurtagelisay in ay iska xakamayso tahriibayaasha uga soo tallaaba dhanka Mexico. So the Biden administration's open border policies have led to a record number of illegal immigrants crossing the border into the United States. waqtigii uu Donald Trump ahaa madaxweynaha Mareykanka, xilligiisii waxaa la suurtageliyay in la dhiso derbi weyn oo u dhaxeeya labada wadan ee Mexico iyo Mareykanka si loo joojiyo qulqulka tahriibayaasha doonaya in ay galaan dalka Mareykanka. shacabka Mareykanku ma jecla shacabka Mexicaanka ah, laakiin Mexicaanku aad ayay u jecel yihiin oo u daneeyaan Ameerikaanka. wax badanna waxa ay ku taamaan in ay ku noolaadaan waddanka Mareykanka. dawladda Mexico marnaba ma horjoogsato dadkeeda u tahriibaya Ameerika. sababta ugu weynna waa arrin dhaqaale. ku dhawaad 5 milyan oo Mexican ah ayaa ku nool Ameerika, kuwaas oo badankood Mareykanka ku galay qaab tahriib ah. dadkaasi Mexicaanka ah ee ku nool Mareykanka waxa ay dalkoodii u diraan dhaqaale dhan $2 milyan bil kasta. lacagtaas cadad aad u weyn ayay ka tahay dakhliga Mexico. dabeecad iyo dhaqan ahaan marka laga hadlo, waxaa la sheegaa in dadka Mexicaanka ahi meel kasta oo ay joogaan ay caan ku yihiin wahsiga iyo dib u dhigashada shaqooyinka laga rabo. tusaale, qofku waxa uu dib isaga dhiganayaa shaqo markaas u taala isaga oo isku qancinaya in uu berri qaban doono. berri haddana waxaa laga yaabaa in uu maalin kale dib ugu sii dhigto ama uu ka tala baxaba. sidaas oo ay tahay waxaa dhici karta in qofka Mexicaanka ahi marka uu mushaarka qaato uu labada maalmood ee ugu horeysaba ku qarash gareeyo dhammaan lacagtii uu shaqaynayay muddada bisha ah. waa dad aad u jecel madadaalada. sidaas daraaddeed kharashaadka ugu badan ee qofka ama qoyska waxa uu ku baxaa waxyaabo lagu madadaasho oo laga maarmi karay. qofka Mexicaanka ahi 3 kama ag fogaado: musiga, khamriga iyo tacos. tacos waa cunto dhaqameed aad looga jecel yahay dalkaas. cabitaanada lagu sarqaamo waxa ay aad ugu jecel yihiin waqtiyada ay daawanayaan ciyaaraha, gaar ahaan kubadda cagta oo dalkaasi si weyn looga xiiseeyo. shacabka Mexico waa shacab dabeecad ahaan iska jecel xaragada iyo faanka. sidaas daraaddeed wax weyn oo la yaab ah ma ahan in la arko xaflado joogto ah meel kasta iyo waqti kasta ay xafladaha dhigtaan. xitaa dhacdooyin iska fudud ayaa xaflado loo abaabulaa. sameecadaha iyo agabka musiga waxaa laga heli karaa guryaha badankood ee dalkaasi ku yaala. maalmaha Jimcaha iyo Sabtida, xaafaduhu waxa ay qabsadaan xaflado laga bilaabo fiidkii ilaa waa beriga soconaya.
waxaa jira aragtiyo isdiidaya oo ay ku dhaqmaan. waxay aaminsan yihiin in sigaarku uu waxyeeleeyo caafimaadka dadka. haddana si iska caadi ah waxa ay u isticmaalaan in ay dhuuqaan murjuwaanaha. murjuwaano waa nooc ka mid ah xashiishka, weliba kuwo ugu daran. waxaa dhici karta qofka isaga oo waddada iska maraya in la weydiiyo rag iyo dumar kee ka heshaa in aad la seexatid si lagugu diyaariyo. arrinta kale ee yaabka badan waxa uu yahay ilmaha waxaa loogu abtiriyaa magaca aabbahood iyo kan hooyadood oo wada jira. sidaas darteed la yaab ma lahan haddii la arko qof Mexican ah oo magaciisu uu aad u dheer yahay. caadiyanna magacyada Mexicaanku waa ay dhaadheer yihiin. haweeneyda ilmaheeda waxa ay ku xambaartaa xabadka, waxayna ku nuujisaa meel kasta oo ay joogto. sidaas darteed waa dhaqan in badan ay ku amaanan yihiin in ay xil weyn iska saareen nuujinta ilmaha, halka meelaha kale hooyooyinku aysan wax weyn oo muhiimad ah siinin nuujinta ilmahooda. laga yaabo in ay guriga uga tagaan oo ay shaqo ama hawlo kale aadaan, maalintii oo dhanna ay ku maqnaadaan iyaga oo aan nuujin, kadibna waqti yar oo ay guriga ku soo noqdeen ay fursad isu helaan iyaga iyo ubadkooda nuujinta u baahan. waxyaabaha kale ee lagu amaano Mexicaanka waxaa ka mid ah cuno karinta. waxa ay ku jiraan dadka ugu cunta diyaarinta wanaagsan xagga tayada, dhadhanka iyo caraftaba. shawarmada waxaa la sheegaa in nin cunto kariye Jarmal ahaa uu ka soo qaaday dalka Turkiga kadibna uu geeyay Mexico. wixii markaasi ka dambeeyayna shawarmo samaynteeda ayagaaba bulshooyin badan uga horeeya. shawarmaha loogu jecel yahay oo ay sameeyaan Mexicaanka waxaa lagu magacaabaa shawarma Boston. amniga waxaa saameyn xoogan ku leh isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha, isku dhacyada kooxaha gaangiska dhexdooda, kuwa daroogada ka ganacsada, iyo sidoo kale ciidamada amnigu waa kuwa joogto ah. aagaga iyo xaafadaha qaarkood waxaa aad ugu xoogan ama maamula kooxaha daroogada la falgala, yacni ka ganacsada ama kala gudbiya. shacabku waxa uu aad u xiiseeyaa fardafuulka. dhalinyaradu waxa ay fardafuulka iyo ku tartamidoodaba ay bilaabaan iyaga oo aad u daa'ir. sidoo kale ciyaarta dibida aad ayaa looga jecel yahay oo looga xiiseeyaa. bulshada aaminsan Kiristaanka ayaa ah aqlabiyadda, kuwaasi oo lagu qiyaaso 89%. sidoo kale waxaa dalka ku nool kuwa aaminsan Yuhuudiyada iyo caqiidooyin kale. dadka muslimiinta ah ee ku nool Mexico waxaa lagu qiyaasaa wax aad uga yar 1%. intaas ayuu ku eg yahay muuqaalkan. inta aynu ku kulmi doonno muuqaalka xiga waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. amaano Allah.